dee bal waxaad ka soo qaadaa adigu jidhkaagan intaad migdi ama soo qaado ama makiimad ku kala jeex kadibna meeshii dhiigu waq leeyahay oo dhaawaca bal farafareeg guje qorye xanuunka dareemaysa intuu leegyahay halkaas laga garan karaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي يدقل كيني نقول هاي المريكة يوتيوب إسماعيل سيد فضلا تدخل عصبت هاي channel كوسو دو سبسكرايب نده أدبض مهاتسان تهده هرون ولسي جوكتي هدي كلابا ومركلي يبرامج كيني أينو هالكن كودني دور حلقات أو تنكو هرية أينو سوق ليني حلقات تنتي كورسنا كوبلان قاضي إن أينو كأيجي دونو حاجة عافماتك هي وحكا قبه waxay ahayd in aan dadkii qobaradii takhassuska lahaa wax badan uga soo joogay inay noo soo fadhiisiyo oo iyagu nooga waramaan hase yeeshee taasi ma inoo suurtoobin waxaan isku dayayaa markaa inta commonka ah ee guud ee laisla yaqaano ee la wada arkay ee muuqanaysa inaan soo qaato wixii tafaasiil gaara iyo u baahan khusuusiyaad inaan iskaga tago oo iyaga maxay ahayd toley aan iska dhaafo ee wixii guud ee muuqanaya oo cid walba arki karayso ama aynu inta badan aragno dhaca sida normalka ah si caadiga ah ayaan doonaya inaan siiradu taago qasab ma aha arrimaha aan sheegi doono inuu qof kasta oo arrinka lagu sameeyay dhammaantii wada arko wax ka midana waa arkay wax ka midana arag ba laga yaabaa qof walibana ayuu odhanin waxa annaga ayaa soo marnay oo kuma aanan arag waxaad sheegaysaa meelaad ka keentay anagoo garan mayno meeshaad ka keentay ku celi oo ayaan laygu hiifin ama aan laygu haaraamin wax jira un weeyaan oo jooga marba dee dacal ayaynu ka eegaynaa sidii aynu arrinkaa meesha uga saari lahayn sida ku munaasibka ah dhammaanteena is wada garabsan lahayn san hore usoo sheegay haddii aynu ku horeyno qodob isku dul taagtaagno kolley maalin walba laga hadlaa oo waynu maqalnaa inta badan laakiin si qodobaysan ayaan doonaya uga hadlo intii aan ka gaadho badin maayo haddaan badiyo dee wax laga geeyonay maaha waa bad la dhex gelaye waxaa ugu horeeya arrinka marka la samaynayo waa arrinkeenii gudniinka fircooniga baan ka hadlaynaaye waxa uu qofkaasi halis u yahay ugu horeynba inuu igfashan qaado qofkan jirkiisii marka la googooyo qalab iyo agab aan inta badan ku munaasib ahayn iyo goob aan ku munaasib ahayn marka la doonto in qofkani uu jirkiisii igfashan galo uu xanuuno uu muddo dhan sii xanuunsado uu meesha hadday doontahan baaboqdo ay meesha ablowdo ay nabarra yeelato oo jirkii meeshii macdanta ahayd ay deed halkaa ku soo gaadho dhaawac weyni taasi waa xaggii igfashan inuu qaado waxa kale oo iyadana iman kartaa dhaawac jireed qofkii waa la jarjaraya jirkiisii oo dee meeshii hilbo ayaa laga googoynaya si dee labadan dhinaca la isku talaya isku qabtaan ilaa wixii la odhan maayo oo xubinka yare ku dhex yaalla laga goynaya kadibna waa la hagaajinaya oo la salaxaya meeshii si ay isku qabtaan waa inta kan hilib weyn laga gooyo dacan hilib weyn laga gooyo dee la isku dhajiyo sida xalaqadii ka horreysay ku sheegnayno haddii maxay ahayd tolay arrinka la daba galo diyo ayaa ka waajibaysaya mag iyo qofkan in loo qisaaso qofka nabarka intan lagu geystay ee qofkan gaarsiiyey waynu sheegnay taa faahfaahinteeda iyo ciddii qabtay wixii laga qababa waxaan leeyahay islaamaha arrinkaas samaynayaanoo haddii aad ogtihiin in diyo laydinka qaado maydaan ku degdegteen kuwa lagu sameyn hadday ogyihiin way u doonan lahaayeen xaggaas aynu ku faahfaahinay taas dul taagmayno dhaawac jireed ayaa qodobka labaad ahoo jirkiisa qofkii soo gaadha waxaa kaloo iman karaa maxay ahayd tolay dhaawac maskaxeed oo qofka maskaxiyan inuu wax u noqdo markuu weero qofkii maxay ahayd tolay isku buuqo inuu dabeeto wax badan ka yimaadaan qofkii inuu dabeeto dhaawac maskaxeed halkaa wax ka soo gaadhaan oo maskaxaantiisiiba qofkii caadi noqon waayo innaguna aynu aragno wax iska caadi oo dabeeciya waxa iyadana ugu weyn oo ah dhaawac korniin xagga koritaanka qofka jirkiisa ilahay wuxuu ugu talagalay inuu koro oo meeshani de waa meel mustaqbal iyo hooyanimo iyo ilmo soo mara iyo lagu talagalay dee adduun kale markaa koriinkii oo kori lahayd xubintii marka labadan dacal isku keenay la isku dhajiyo korniinkeedii wax badan baa ku imanaya oo ma koriso sidii loo baahnaa noqon mayso cidi baa gelaya waa dhaawaca saddexaad ee soo gaari kara xubinka wax la yeeleeyey waxa kaloo iyaduna dhibaatadeeda leh inantii markay dee ilmo yar markii hore ahayd weynaato qaangaadho qof noqoto dee caadadii bay helaysaa iyo wixii ilaahay ugu talagalay dee dumarku inay helaan markay qaangaadhaan caadadii hadhow oo qofkii dee meelay kasoo baxdo u baahan marka dhulkii o dhan dhibaata la wada tole ay meesha cidhiidhi noqoto dee caadadeeno sida kaado kale dee wax jilicsan soo baxaysa meeshii maahee waa wax dee la wada yaqaano culayska iyo maxay ahayd tolidkii lafta ay leedahay oo dee si yar meeshu kasoo bixi mayso qofki way dhibaysaa keliyaha wax yeelaysaa maalin walba waan aragnaa intaasoo qof laleeyahay keliyaha wax noqday isagoo da'diisuba aad u yar tahay oon dadkii waaweynaaye dee keliyadu soo shaqeeyeen xanuunada looga baqanaya aan ahayn waa waxyaabaha ugu badan keena ayay ka mid tahay waa sida la wada yaqaano ee commonka ah saan idiin sheegay dee inta muuqata ee waaweyn ayaan soo qaadanayaaye markay inantii qaangaadhay caadadii hesho aad bay u dhibaysaa dib weliba maxay ahayd toolay badan ayay kasoo gaadhaya halkaa waxa kale
oo iyaduna qodobka hoos imanaya oo qodob kale oo ka farcamaya noqonaya werwer ciidda ka badan qofkii markuu xanuunka faraha badan markastoo ay caadada inantii heshoba ay helay dareemayso werwer ay kasii qaadayso cabsi ay kasii qabayso talow maanta waad aragtaa sidan ay kaaga dhamaatay biri warka kusoo socoto miyay kasoo dari doontaa mise talow tan oo kale noqon doonta mid caynku eeg baa iyaduna kugu soo hagaagi doonta waa mid kale oo meesha aad iyaduna u dhib badan waxa aan soo dhaafay oo xagga hore inaan ku sheego ay ahayd oo qodobka labaad ah qalabka la adeegsanayo agabka la isticmaalayo agabka ay qofkan dumarka ah hawshan ku jirta isticmaalayso waa agab dee aan laga yaabo inuu dhowr qof oo kala duwan laisku soo mariyo ama aan ku habboonayn ama muddo badel isticmaalayay agabka laftiisu wuxuu keeni karaa dhibaato aad u fara badan waxaa kaloo isna qodobka kasii farcamaya qofkan waxaan maxay tahay sameynaya hawshan qaliinka geli operationka inta leeg inta badan waa wax ay dumarku kala dhaxleen oo qofba qof kale uu ka soo arkayo khibrad ahaan waa waxay kala dhaxleen ma aha waxay 10 iyo tireeran u qaateen ay garanayaan xubinka laga badbaadinayo iyo xubinka aan wax la yeelin xubinka inay la dhowro tahay iyo xubinka waliba intuu dareenkiisu leeyahay mid walba dee wax cilmi ay ku soconayaan oo ay u soo qaateen ma aha ee waa wax ay tijaabo uun ku soo mareen iyaduna waa dhibka kale ay leedahay qodobada ugu waaweyn iyagana aynu ka taaban karno waxa weeyaan marka qofkii intaas oo dhan ay soo marto kadib waxa dee qasaba intii haddii ilaahay nafta u daayo oo ay amadee sii joogta adduunkan inay dee mustaqbal iyo xiriir reer samaysato iyo dee hooyanimo isku diyaariso waxa ugu horeeya dee markaa la galaana waxa weeyaan inay inantii dee markay guur u hollato waxa ku xiga waa dee xiriir reernimo xiriirkii reernimo marka la sameynayo dee meeshii laisku tolee baariday ee jidhkeena u egaatay halkan kale noqotay dee waa in meeshii qalin lagu sameeyo la jafo oo la kala maxay baneeyo dhulkii la xidhay berga hore ee madiidmay dee bal waxaad ka soo qaadaa adigu jidhkaagan intaad midi ama soo qaado ama makiimad ku kala jeex kadibna meeshii dhiigu waq leeyahay oo dhaawaca farafare guje qorye xanuunka dareemaysa intuu leegyahay halkaas laga garan karaa dhulkiiyo maxay tahay hadda qaliinkii gacanta laga qaaday marka la yiraahdo xiriir reernimaha laga dayo dhibka iyo werwerka iyo maskax xanuunka iyo buuqa iyo isku maxay ahayd toolay dhibaatada ugu weyn ee halka ka dhalan karta waa dhibaatooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay taa marka laga sii gudbo meeshii waxay imanaysaa inay qofkii hooyada ahayd hooyanimadeedii u diyaar garowdo oo meeshii ilmo inuu soo maro ay hooyadii dhasho ayaa iyadana ku xigaysa hadhow markay hooyadii umulayso dhowr qodobba waxay noqonaysaa inay dhibaatadeedii dhadhamiso waa mid horta xubintani sidii loogu talagalay may u korin oo waa naga soo sheegnay waxaan idhi korin xumaa ku dhacday oo sidii hawsha yareed ee dhibta yareed ee ilmahan u dhalan lahaa u dhalan maayo waa talabaad xanuun ciida ka fara badan oo aan markii hore qofkan maxay ahayd tole caadiga ilaahay sidoo ugu talagalay ay ku dhali lahayd aan ahayn ayaa iyadana soo maraya waa barta ugu xun kulli waa la marxaati furi doona in badan baa intii ka soo shaqaysay iyo intii ay soo martayba waxay ahayd tole waa arrin laga dheregsan yahay waxaan ku soo gabagabayn lahaa qodobada dan sii wado way farbadanayaane qodob ka mid ah isaguna isla xiriirka iyo reernimada iyo qoyska ah inantani marka ay mustaqbal samaysanayso waxa ugu horeeya waa in ay maxay ahayd tole meesha dee wixii shahwadeeda iyo dareenkeeda ahaa ay ka hesho waxa ka dambeeya ubad in la dhaliyo hooyo la noqdiyo waalid intaasina waa xagga alle laga helo oo la rajaynayo laakiin diilada ugu weyn ee loo sameynayo qoyskan iyo reerkan loo dhisayaaba waa in qofkani shahwadiisii iyo dareenkiisii iyo wixii uu doonayay dee helo xiriirkeeduna taa aad u dhib badan yahay oo dee qofkan wuxuu ilaahay ugu talagalay inuu qofkan kale kula macaamilo ayaa laga dilay mas madaxa laga dilayno dee dhaqdhaqaaq kale ma yeesho taasina waa waxyaabaha ugu xun ee keena inta badanna inay reeruhu burburaan ama reerihii kala yaacaan ama meeshiisii la doonaya ay noqon weydo qodobkanka ku xiga waxaan kusoo qaadan doonaa maxaa loo samaynayaa arrinkan maxay tahay ujeedada hooyooyinkeena wanaagsan u samaynayaan caqliga saliimka iyo curfigeena wanaagsan muxuu ka qabaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.